Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Isku soo noqod wanaagsan dhalinyaro. Waxaan rajeynaynaa caafimaad qabtaan dhammaantiin meel walba joogtaana. Maanta muuqaal kale. Muuqaalkeena maanta wuxuu ku saabsan yahay qaabka loo dhisaan gareeyo xalfad aroos. Marka posterkaas aan isla diyaarin doono maanta xalfad aroos ama invitation qaabka loo dhisaan gareeyo isla arki doona. Waxaan ku dhisaan gareyn doonaa Adobe Illustrator. Marka la socod wanaagsan. Intaan ugu gudbin horta videogeena waxaan kaa codsanayaa haddii ay tahay markii koodana soo booqato inaa channelkeena kusoo biirto video like saarto commentiga noo wadaagto fikirkaada iyo videoga xiga waxaan ka dhigi doonaa. Marka la socod wanaagsan. Waxaan isticmaali doonaa sida hore uu sheegay Adobe Illustrator. Marka la socod wanaagsan. Markaas aan soo galno control inaan leenahay. Qaybtaan waxaan isticmaali doonaa horta qaybta waa kan cabirkan hore uu noo diyaarsanaa. Meeshan aan ku qoran doonaa marka poster aan ku qoran doonaa. Marka cabirka isticmaali doonaa widthkiisa waxa waaye 1080. Qaybtaan heightkiisa waxa waaye waa 12.17.6.56 unitkiisana waa pixel. Qaybtaan CMYK waxaa loo isticmaalaa marka daabacayso. Ana marka maadaama aan practice aan u qaadanayno waxaan ka dhigi doonaa RGB. Marka RGB sababtoo calaamadaas ku soo saaraya waxa waaye cabirka waxa loo tirgelin in la daawaco. Marka hore u gudgalno create leenahay. Create markaas aan u dhaano kana ku laaban doonaa waxaan soo qaadan doonaa colorka. Kana ku laaban doonaa colorka waxaan iska isticmaali doonaa colorka cagaarka. Marka inta waxaan ku qoran doonaa marka xalfad aroos aan leenahay. Marka dooran doonaa farteedan waa tana xalfad aroos maxaa la marka xalfad aroos farteeda saan soo doorano oo halkaan ilaa halkaan aan keensan doonaa. Saan leenahay ilaa dhaxaas ku hadisan doonaa. Marka qaybtaan hada weyne leenahay. Hada capital ahaata. Hada capital ka dhiga leedan qaybtaan aroosana eedan capital. Marka labadaas qaab ka dhigin doonaa halkaan aad dhiginaysaa. Marka fartan waxaan ka dhigi doonaa colorkeeda siin doonaa cagaarkaas. Halkaan aan dhigin doonaa dhexdan. Marka qaybtaan hoos qoraalka hoose ka sokeey. Qoraalka hoose koob soo dhigi doonaa isaga waxaan soo sanno. Koobi qoraalka waa qori kartaa idinka waa kana waa wada jira nabadgala. Intaas qoraalka haddii haysatan waa ku qoran kartaa adi. Marka anaga qoraalkaas aan koob soo dhaanay. Halkaan aan dhiginayna marka qoraalkiina. Fartan xawaa noogu daraalay ilaa intaas wada jira oo wada noolaada. Marka hadda qoraalka haddii aad rabin inuu geesaha kaaga bixin waxaad daawan kartaa meeshan oo artboard-ka double click siinaysaa. Marka artboard-kan ku soo baxo meeshan hoos labadan qaybood show labadan hoos atig saaran doonta. Okay leenahay. Marka halkaas qaabka noo noqday. Ka aan leenahay okay. Inta fartan hoos soo dhigaleen. Tanna ilaa intaas. Marka hadda sidaan dhahno waxaan soo qaadan doonaa marka ellipse halkaan aan dhigin doonaa ellipse wali polygonal tool aan soo qaadan doonaa. Halkaan ku fidiyaa leenahay marka. Qaabkaas markuu noo fidiyo waxaa qaban doonaa marka geesaan. Saan oo soo qaabkaas ka rabnaa noo noqdo. Marka aan siin doonaa colorkaas aan siinay. Marka darbiga waxa ka soo durjaan leenahay. Marka asagana koob aan leenahay marka. Koob intaan dhihin asagana hadana koob ka bixin doonaa. Koob marka ka bixino waxa stroke gararna inuu yeelno. Kana qaban doonta marka midka koobaad. Kan kor qabani. Kan kor marka qabato waxa soo yar weyneen marka. Qaybtan aad tagaysaa igu bedelalay stroke. Marka qaabkan ka dhignay asagana koob leedahay marka halkaan saaranaysaa. Qaybtan kala saaranaysaa. Halkaan marka dhano marka isla sinaan leen labada marka hadda qaabkaas dhano waxa soo qaadan doonaa meesha waxa ku qornayna marka magacyadoodii midaan kor soo qaadan doonaa horta fartana koob soo dheena. Marka meeshan qofka magaca urtaadii adaa yaqaano. Marka anaga hadda magacaas ka alifin doonaa. Abdi Ali Omar. Qaybtaan hore waxa ku qoran doonaa Abdi Ali Omar aleen horta. Omar marka dhano Omar taan waa ka jiri doonaa. Abdi marka halkaas aan u dhigno asagana hoos dhigi doonaa marka inta kale. Magaca kalena qaabkan kii hore camal leernayna sameeyna mid ka duwan marna. Kii hore leernayna sameeyna.
marka saan leenahay isla asagana dana koob leenahay kan le koob leenahay ayagoo sidaas ku wato leeb koob dheenaayo halkaan dhiginayna gabadhana magaca u raadino magacaadi Faaduma leenahay Fatima markaas aan qaybtan gabadha magaca waxa u bixinay waa Faaduma Abdi leenatan Abdi Umar magacaas ka soo alifan laakiin adiga waxaan kuma qornays magac saxan ah ku qornaysa marka qaybtan intana koob soo leena marka waxaan qoraaladan waa qoran kartaan kulliga waan in soo dhigi doonaa qaybta hoose oo linkiga Telegramka halkaas kala dhigi doontaa idinkana marka qaybtan hadda waxa ku qoran meeshan tabarakallahu lakum ducada ku qoran meeshan qaybtan hoose waxa ku qoran gacal sukayo guurkiina lagu farax marka qaybtan xoogaa saaid u yarweyn tahay xoogaa inaan yareeno ilaa intaas leekisiino qaybtan islaama kulli dhaxda kooda adeelan nur qaybtan kale isla dooro central lena marka labadoodan mar isla dooro marka qaabkaas aranayna yeelnay waana yeel marka hadda soo qaadan doona shape meesha tagaysa rectangle soo qaadan doona halkaan ku fidinayna marka rectangle-ki meesha ku qoran doona location-ki iyo waxyaalaha kala meesha halkaan markaan color-ka siino waxa tagi doona marka qaybtan soo bixiso meesha yarta ishana qabanaysa double click siinaysa qaybtan ku soo bixi doonto marka halkaan waxa ka tagaysa marka qaybtan kor furaysa halkaan ka dooranaysa marka qaybta dhexda geenaysa taas tan isla meesha se geenaysa kulli qaabkaas oo wada dooranaysa marka waa rectangle position-kiisa qaybtan ka sodan camal geenina marka meesha waxa ku qoran doona marka waxa ku qoran doona location-ki iyo waxyaalahaas inta waa kuwan automatic koob u soo dhigi doonaadi halkaan toos u dhigin doona marka halkaan soo dhignay marka qaybtan meeshan waa saacadi icon-kan waa icon-ka saacada icon-kan kalena waa icon-ka taariikhda icon-ka kalena waa midka location-ka kullin waxaan soo dhigi doonaa Telegramka ka wadaagaysa dhamaantood marka si loo soo gashtan waa taqaanaan kulliba marka halkaan waxa ku qornaysa marka saacadi qaybtan taariikhdii taariikhda kan maxay waaye shafraad sheegaysa laakiin bishta dooda bishii xaga ku qoran doona 22 dhaca camal qaybtan kalena location-ki aad joogto markaas ku qoran doontaa anaad qof location-ka jooga u sameeynay marka had saarkaysa design-kiina waa dhameynay oo waxyaalo waxa ka dhiman kaliya sawirada iyo xogaa kala qurxin waxa soo gelin doona marka sawirada balisa soo leenay marka akana anna sawirar real isticmaalaysa anaga kuwan ku real maahan oo kaliya in ku tusaa u tirgale sawir oo caadi isticmaalaysa idinkana ama ku inaahada ama kuwa kala oo qof u sameynaysa ahaada markana kii gabadha raadin doona halkaan saaranaysa marka qaybtan si loo soo gabo si oo malay qaybtan waxa tagaysa sawirka klik siinaysa place waxa tagaysa place meesha tagaysa qaybtan normal tagaysa marka draw normal marka qaybtaas place tagaysa normal draw normal halkaas sawirka soo gelinaysa marka saarkaysa design-kiina waa dhameeyay oo wax noo dhiman ma lahan waxyaalan geesaha ka saaran bisa noo dhiman marka halkaas waxa soo qaadanaysa shape ellipse halkaan ku fidinaysa marka samka u fiiso qaybtan effect tagaysa meeshan documentary style ku dooranaysa marka qaybtan macaashan hadda ku qorantay 35 waxa ka dhiganaysa 0.5 inch ka dhiganaysa marka inch hadda waxay tahay farta capital inch marka dhaano qaybtan effect ku tagaysa waxa dooranaysa bolar gaashaan bolar leedahay marka gaashaan bolar qaybtan oo badanaysa marka gaashaan bolarka marka saanano qaybtaasna qaabkaan u sameeyay oo kan la koob leedahay inta saarnaysa sharaxaad yar leh wax saas kala u baan marka design-kiina waa dhameynay oo qaabkaan
qaabkan quruxda badan ku soo baxay marka design-keeni waa dhameynay intaan ku eegay cashirkeena marka waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iideysateen marka hadii ay tahay markii kugu koowaad soo booqato waxaan ka codsan hadii ay tahay markii kugu koowaad soo booqato inaad video-gan like saarto subscribe gareys channel-ka marka video waxay inta kulma doona xageetiga sidaas iyo nabadgelyo.